xisbiga wadani ayaa shaaciyay waqtiga kama dambaysta ah ee ay murashaxiinta xisbigaasi uga tartamaya gobolada dalku soo xareynayaan araajida codsiga murashaxnimada sidaasina waxaa sheegay xogayaha guud ee xisbigaasi oo maanta warbaahinta la hadlay kadib kulan hogaanka xisbigaasi uu ku yeeshay xarunta dhexe xisbigaasi uu ku leeyahay magaalada Hargeysa xisbigu waxa uu sheegay in la soo qadimay waqtigii xisbigu qorsheeyay in lagu xuro murashaxiinta xisbigaasi ee u tartamaya doorashada golaha wakiilada iyo deegaamada ee gobolada dalka xisbiga wadani waxa uu sheegay in maalinta Khamiista ee bari ah ay bilaamayso diiwaangelinta murashaxiinta xisbigaasi ee gobolada oo dhan iyadoo oo socon doonta muddo cayiman oo markaasi la doonayo in lagu soo dhameystiro murashaxiinta xisbigaasi ee tartamaya waxaanu baaq u diray dadka hanka siyaasadeed leh ee doonaya inay isu sharaxaan golayaashaasi doorashadoodu dhacayso bisha May ee sanadkan lagu jiro waxaana xogayuhu isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisa kamid ahaa run ahaantii jira oo aynu iyadana la soconaa in COVID-19 iyo xanuun ay jiraan taasina ay keenayso in logistics-kii iyo waxyaabihii la soo daabici lahaa ay waqti dheeraad u baahan yihiin sidaa daraadeed commissionku waxa ay naga soo codsadeen in hawsha soo xulista murashaxiinta la dedejiyo oo sida ugu suurtagalsan ugu dhaqsaha badan loogu soo gudbiyo commissionka doorashooyinka qaranka marka anaga oo taa ka duulayna waxa aanu sameynay runtii jadwal cusub oo aan u baahanahay in murashaxiintuna ay la socdaan hadii la yiraahdo insha Allah maanta oo ay bishu tahay sagaal waxa halkan ka dhacay workshop tababar ay isugu yimaadeen dhammaan gudoomiyaasha gobolada ee xisbiga wadani iyo hogaanka sare xisbiga wadani ujeedadu waxay ahayd in ay gudoomiyaasha goboladu ay la isla fahmo habka loo shaqeynayo muddada kooban ee murashaxiinta codsiyadooda la qabanaya hadii la yiraahdo insha Allah qabashada codsiyada murashaxiinta ee si rasmi ah waxay u bilaabmi doontaa hadii la yiraahdo insha Allah 6 gobol ee wadankaba barito oo ay bishu tahay 10 hadii la yiraahdo insha Allah marka waxa lagu wargelinayaa dhammaan murashaxiinta xisbiga wadani iska soo sharaxaysa kuwa degmooyinka deegaamada iyo kuwa wakiiladaba in murashax waliba uu codsigiisa ka xareyn doono xafiiska xisbiga wadani ee gobolka markaas inay taas run ahaantii ogaadaan barina hawshaasi ay hadii la yiraahdo bilaabmi doonto waxa ay xafiisyada xisbiga wadani furnaan doonaan ee goboladu 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo maalin kasta oo ka bilaabmaysa hadii la yiraahdo barito oo ay bishu 10 tahay jimcaha xataa waa furaanayaan xafiisyada xisbigu hadii la yiraahdo insha Allah goboladu shaqadaasi waxay soconaysaa ilaa 19 bisha February oo ah deadline-ka dadka murashaxiinta laga doonayo inay kama dambays u soo gudbiyaan codsiyadooda dalabka inay doonayaan inay iska sharaxaan xisbiga wadani wakiilada iyo deegaankaba arinta run ahaantii aad baan ugu adkaynaynaa waa Khamiista dambe hadii la yiraahdo 19 February si hawsha ay u fududaato oo loo dardargeliyo 9 maalmood ay haystaan murashaxiintu in codsiyadooda ku diyaariyaan documentska sharciga ah ee shuruudaha maxaan ku raahdaa doorashadu ay ka rabaan ay diyaariyaan dabadeetana ay xarunta hadii la yiraahdo insha Allah ku xareeyaan gobolka qofku ka sharaxan yahay waxa kale oo xarunta ay ka helayaan foomka oo maxaan ku raahdaa xisbiga wadani uu leeyahay qofka codsadaha ee murashaxu buuxinayo foomamkaasi bari laga bilaabo xarumaha gobolada ay diyaar ku yihiin xarunta dhexe ee xisbiguna shaqadaasi qaban mayso ee waxa la tagayaa gobolada maxaan ku raahdaa ay dadku ka sharaxan yihiin hadii ilaahay raahdo insha Allah intaas baan doonaynaa sheegno aan aad iyo aadna ugu adkaynayna in deadline-kaasi la ogaado inuu deadline jiro oo xilliga wixii ka dambeeya ay adkaan doonto qofku inuu soo gudbiyo codsigiisa waayo inta wixii ka dambeeya waxa bilaabmaya sida shaxda aanu dajinay ay maxaan ku raahdaa ka muuqata waxa bilaabmaya kala xulustii murashaxiinta oo gudidii u xil saareed ay hadii la yiraahdo insha Allah ay galayso oo 22 bisha oo sabti ah bilaabmi doonta hadii la yiraahdo insha Allah markaas si March horaanteeda ay hawshaasi dhamaanteed soo wada gabagabowdo oo liiska kama dambaysta xisbigu uu soo baxo waxa lagu adkeynayaa dhammaan murashaxiinta inay hawshaasi serious u qaataan goboladii ay ka sharaxnaayeen ay tagaan documentiga rasmiga ah na ay halkaas ku xareeyaan